nolosha aynu joogno bini aadamku waqti isku mid u haystaa waqti isku mid ah inta badan dadku 60 jir 50 jir 70 jir meelaha waa soo wada gaadha laakiin midhaha iyo raadka ay dunida kaga tagaan iyagoo isku waqti noola waa kala nooc sababta u kala noociyna waa masalada tan camalka bini aadamku qabta waa saddex qaybood mid oo inuu yahay qayb ku anfacaysa qayb wax tarta aakhiriya adduun manfacuun leh iyo inuu yahay qayb wax dhibta aakhiriya adduuma dhibaato kuugu jirto iyo inuu yahay qayb aan manfac iyo madarro toona lahayn laba inaad ka tagtaa markaa la rabaa midna qaadatid wuxuu nabigu leeyahay ixras calaa maa yanfacuk waxaad ku dadaashaa waxa ku anfacaya waqtigaaga iyo maalintaada iyo xooggaaga iyo cilmigaaga iyo aqoontaada iyo hantidaada iyo garaadkaaga iyo waxaad awood leedahay oo dhan waxaad ku isticmaashaa waxa ku anfaca taa macnaheedu waxa weeyaan waxaad ka tagtaa wixii ku dhibaya ka tag waxaad kaloo ka tagtaa waxaan macnaha samaynaynin dadka in badan oo ka midi waxaabay dhib ku ah waqtigoodaba marka waxay raadinayaan waxay ku dilaan waxay ku madadaashaan madadaaladu waa wuxuu rabo qofku inuu waqtigiisa ku baabi'iyo xooggiisa iyo xoolihiisa iyo caqligiisa ku baabi'iyo aan adduunkana manfac ku lahayn aakhirana manfac ku lahayn adduunna wax kama tarayso waxaanu wadaa aakhirana wax kama tarayso qofna isagu wixii dhibayay baabuu waqtigiisii ku bixiyey wax xaaraan oo aan diin ahaan ku bannaanayn oo caqiid ahaan bannaanayn oo ayuu ku bixiyey nabigu calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu ina leeyahay ixris calaa maa yanfacak calaa maa yanfacuk ku dadaal waxa ku anfacaya bitacbiiri ahli alcasri waa waxay yidhahdaan kun muntijan aw kun iijaabiyan qof wax soo saar le ahaw qof wax tara ahaw qof wanaagga qabta noqo noloshaada maalintii waxaad qabanaysaa waa inaad isweydiisaa ma manfac adduun buu kuu leeyahay mise manfac aakhiro kuu leeyahay haddaad waxa labadaa ka dhex arki weydo waa wixii lagu yidhi ka tage ka tag haddaad manfac adduun ka weydo ama manfac aakhiro ka weydo waxtar ma leh sheekada ugu badan ee soomaalidu ka sheekaysaa waxtar ma leh siyaasadda iyo qabiilka iyo reeraha iyo waxa laga sheekeeyo oo dhammi waxtar ma leh kubadaha iyo cayaaraha iyo wax la daawado oo dhammi waxtar ma leh wararkan habeen iyo maalinba la dhegaysanaya la wado intooda badani waxtar ma leh wax badan aan waxtar lahayn baa dadku waqtigiisii ku qaada nabiguna wuxuu tilmaamayaa min xusni islaami almar'i tarkuhu maa laa yacniih qofka muslimkaa islaamnimadiisa wanaaggeeda waxaa ka mid ah isagoo ka taga waxaan macno u samaynaynin tarkuhu maa laa yacniih waxaan isaga khusaynin waxaan ku khusaynin waxna ku taraynin maanta dhaa haddaad ka waranto laba gaaloo meel isku dilay kii la dilay adiga waxba ku tari mahaya warkooda iyo akhbaartooda waxba ku tari mayso akhbaarta siyaasiga dad ka sheekeeya inteeda ugu badan leh waxba ku tari mayso waxyaabahan ka sokeeya iyaguna cayaarahan iyo madadaadadan iyo whatsappkan iyo snapchatkan iyo waxa la wadoo dhammi akharuhum waxbaabay dhibaan aakhiriya adduunba inta aan aakhiriya adduun manfaca ku lahaynina aan wax dhibinina waa inaan adduun iyo aakhiratoona manfac ku lahayn marka wixii aan manfac ku jirin mid adduun iyo mid aakhiro waa inaad ku xisaabtantaa inaad waqtigaaga iyo xoolahaaga iyo xooggaaga iyo caqligaaga inaad gelinin sidaa awgeed buu nebigu wuxuu ina leeyahay ixris calaa maa yanfacuk wixii ku anfacaya ku dadaal intaa kadib uu nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam wastacin billaah ilaahayna kaalmayso ilaahay kaalmayso macnaheedu waa in qofka mu'minka ahi wax kasta oo uu qabanayo ama uu ka fakerayo wuxuu rumaysan yahay inuu ilaahay gacantiisa ku jiro qofka mu'minka ee dhabta ahi guruur kuma dhaco iyo cujb isla weyni iyo anaa caqli badan iyo anaa karti badan iyo kaama rumaysana qofka muslimkii wuxuu rumaysan yahay ilaahay inuu markasta u baahan yahay markastaba inuu ilaahay u baahan yahay saa daraaddeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ina baray
markasto inuu ilaahay sortaagna inaynu akhrino iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'iin ilaahu adaanu ku caabudayna kaliga baanu ka kaalmo dalbayna qofka muslimka ahi markasta baahidiisa waa qof ilaahay u bandhiga waa qof muujiya inuu yahay adoon daciifa waa qof rumaysan laa xawla walaa quwata ila billah wuxuu rumaysan yahay waa kanzun ayuu nabigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam cabdullaahi ibnu qays buu nabigu yidhi ma ku tusiyaa kanz min kunuuzi ljanna khasnadaad jannada ka mida makuu sheegaa faqultu balaa yaa rasuula allah haa buu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow xadiidka saxiixayn ku yaal nabigu wuxuu ku yidhi markaa laa xawla walaa quwata ila billah weeyaan laa xawl xeelad malihi iyo awoodtoona ilaa billaahi mooyaane ilaahay oo aan gargaarsada mooyaane anigu xawl iyo xeelad iyo quwo iyo itaal midna malihi qofka muslimka ah markaa waa qof baahidiisa ilaahay u bandhiga nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam saxaabigii uu jeclaa ee mucaad ibnu jabal wuxuu ku yidhi yaa mucaad wallahi innii la uxibuk ilaahay baan ku dhaartay mucaada waan ku jeclahay buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam markaasuu mucaadna wuu yidhi ilaahay rasuulkiisii arguna waa ku jeclay nabigu calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu yidhi kelmadaan ku baraya ee salaad kasta dabadeed ha ka tegin mar kastoo aad salaad tukato farala erayadan ku dhawaaq erayadu maxay yihiin waa erayada adkaarta aynu akhrino markaynu salaadaha tukanoyn allahuma acinnii calaa dikrik wa shukrik wa xusni cibaadatik wuxuu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam mucaad ibnu jabal waxaad tidhaahdaa ilaahayow iigu gargaar xuskaaga inaan ku xuso aanan ku ilaabin inaan kuu mahadnaqo aanan kaa gaaloobin iyo si fiican inaan kuu caabudo ilaahu kaa iigu gargaardhe nabigu calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu inagula dardaarmayaa kow ixris calaa maa yanfacak wixii ku anfacaya inaad ku dadaasho waxaan ku anfacayn inaad ka tagto isla markaana inaad ilaahay tala saarato oo ilaahay subxaanahu watacaala aad u tala saarato wax walba wuxuu nabigu raaciyey markaa taa cagsigeeda waxaa dadka u diiday inay wax qabtaan walaa tacjis buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam tacjis iyo tacjas labadaba waa la odhan karaa buu yidhahdaa imaamu nawowi laakiin kasrada caana walaa tacjis ha caajisinku waa maxay qofka bini aadamka laba wax baa ku dhaca bay yidhaahdaan alkasalu waalcajsu bay yidhaahdaan kasalku waa qofka wahsiya cadamuliraada waa qofku aan doonisba lahayn inuu wax qabtaba rabin cajsiguna waa qofkiiyo raba inuu wixii qabto laakiin haddana qaban karila u taagla cadam alqudra shaqo kastoo la qabtaa waxay yidhaahdaan labadan shay buu camalku ka kooban yahay inaad waxaad doonaysid iyo inaad awoodid markaasuu camalku kuu qabsoomaya inaad doonaysid inaad qabato iyo inaad awooddo nabigu calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu tilmaamayaa inaynan cajsinin dadka badh ayaa wax kastoo ay qabtaan taswiif ku sameeya insha allah berraan samayn doonaa war maanta aad qaban karaysaa maxaa berri camal kale u dhigo maya berraan samayn doonaa wax kasta berru u dhigaya ama maahe brogramyo iyo barnaamij buu degaya markaasuu leeya insha allahu saasaan yeelaya sanadka dambe qur-aankaan xifdinaya sanadka dambe waxaan rabaa jaamacadda ee balas inaan kaga baxo insha allah waxaan rabaa waqtiga soo socda tijaaradaasi inaan galo waxaan rabaa kutubtaa inaan dhigto waxaan rabaa cibaadadaa inaan sameeyo laakiin afku ka leeyahay waa barnaamij afka ah camal ma gaadhayo isuma bedelayo maxay wax camal isuma bedelayo in wax la bilaangareeyaa ma xuma laakiin waxaad bilaangareynaysaa waa inuu yahay waxaad awooddo qaban karaysa marka koowaad shay fii maqduurik waa inuu yahay waa inaad qof riyoonaya noqon dadka badh baa day dreaming adoo soo jeeda inaad riyooto maaha waxaanad samayn karayn haddaad iskaga wadwado waa riyo kale un dadkii hurdaa riyooda dadka soo jeedana qaar baa riyooda oo mar haddaad waxaanad qaban karayn aad ka fekerayso waad riyoonaysaa waxaad balaangaraysay waxaad qaban karto waa inuu noqdaa
marka labaadna waa inaad fulisaa. fulintu dadka badhba fulanima haysaa. armaa dadku kula yaabaa, armaa si xun lagu eegaa, armaa shaki unbaaba iskaga soo ururaya dadka badh oo wixii uu qaban lahaa u diidaya. armaa lagu idhaahdaa waxaan wuu istusaya, waxaan kan buu samaynaya. laakiin nebigu wuxuu ina leeyahay ixris calaa maa yanfacak wastacin billaah walaa tacjis. marnaba ha caajisin. bale nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabigii u shaqayn jiray ee anas ibnu maalik ahaa ayaa wuxuu leeyahay anuu nebiga u shaqaynaya wuxuun baan maqlaa isagoo ku celcelinayoo leh allahuma inii acuudu bika min alhami waalxasan waalcajsi waalkasal waalbukhli waaljubn wadalaci ddayni waghalabati alrijaal. isagoo ku celcelinayoo leh ilaahu waxaan kaa magan galay warwarka iyo walbahaarka iyo tiiraanyada iyo murugada. hamigu waa waxa soo socda uu qofku ka warwaro mustaqbalka oo la madoobaada oo dabeetana qofku warwaro. xusniguna waa wixii ka tegay qofka oo tiiraanyo iyo murugo ku reeba. idan waa laba warwar ama laba walbahaar, laakiin waxay ku salaysan yihiin midna waa wixii tegay, midna waa waxa soo socda. nebigu calayhi salaatu wasalaam labadaba ilaahay buu ka magan galay. wuxuu kaloo ilaahay ka magan galay alcajsu waalkasal. waa labadan xanuun aynu hadda sheegaynay. qofku inuu cadami alqudra, inuu wax awoodi waayo, ama in doonistuba ka dhimato. doonistuba inay ka dhimato. oo dadka badh baa wahsiga iyo hurdada mooda inay nimco tahay. waa raaxaysanaya buu leeyahay, deetana wuu jiifaya saa baktiga. waxba nolosha hurda kuma soo kordhiso. qofku waa inuu hurdada seexdaa intuu uga baahnaa uun, intuu caafimaadkiisa ku ilaalinayay, intuu nashaadada jidhkiisa uu dib ugu soo noqonaysay. sidaa awgeed buu nebigu wuxuu ilaahay ka magan galay wahsiga iyo waxtaryarida. wuxuu kaloo ilaahay ka magan galay bukhliga iyo jubniga. jubnigu waa baqaha. waa qofku markuu wahsado dee wixii uu ka baqaya, dabeetana si aad u sugaysa leedahay baraad qaban inaad u leedahay ayay iswada fuulaysa. hadhowna waxay gaadhaysaa shaqadii waxaanad qaban karinba. bukhliguna waa wixii oo anfacaagii oo aan dadka gaadhaynin. wadalaci dayni waghalabati rijaal. waxa uu nabigu sheegayna waxa ka ratibma daynta oo kaa xoog badata iyo bini aadamka oo kaa xoog bata. xadiidkani waxa uu tilmaamayaa markaynu soo duuduubno qofka muslimka inuu qof active ah, qof nashiita, qof firfircoon, qof raba inuu wax qabto, qof camal adduunyo mid aakhira midun ku foogan, qof aan noloshiisu khasaare noqonin ama waqtigiisu khasaare ahayn ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam tilmaamaya. walidaalika buu nebigu wuxuu tilmaamayaa waqtiyada qaarkood ayacjizu axadukum buu nebigu yidhi, waar midkiin miyuu kari waayayaa an yaksiba kula yowmin 1000 xasana. maalin kasta inaad 1000 xasano shaqaysato miyaad awoodi kari waayeysa? nin raggii meesha fadhiyey baa wuxuu yidhi kayfa yaksib axaduna 1000 xasana. oo midkaa yasuu 1000 xasano u shaqaysan karaa, 1000 ajara u heli karaa. qaala yusabixu 100 tasbiixa fayuktub lahu 1000 xasana. dee 100 goor baad subxaan allah odhanaysaa iyo waxa laguu qoraya. subxaan allah intay kaa qaadanaysa? 100 gooroo subxaan allah waa less than 1 minute. ka waran 1 daqiiqo oo noloshaada ka mid ah haddaad 1000 xasano shaqaysan karto. saacaddii misaad shaqaysan karaysa? waxaa meesha taalla markaa nebigu wuxuu leeyahy qofkaasi subxaan allahi yidhaahda ee tasbiixda la yimaada 1000 xasanana waa loo qoraa, aw yuxatu canhu 1000 khati'a, ama 1000 dambaa laga dhigaa. cajsigu dad buu gaadhay inay xataa awoodi kari waayeen inay ilaahay baryaan. ilaahay baryadiisa xataa inay ka gaabsadaan. si awgeed buu nebigu wuxuu leeyahy acjasu nnaasi man cajasa can idducaa. acjasu nnaas man cajisa can idducaa. dadka waxaa u caajisnimo badan
dee ninka awoodi kari waaye ilaahay inuu baryo waabkhalu nnaasi man bakhila bisalaam dadka waxa kaloo u bakhaylsan buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam qofka dadka kala bakhayla inuu ku yidhaahdo assalaamu calaykum assalaamu calaykum waa duco inaad dadka u ducaysad kala bakhaylaysa ayuha alaxiba waxay leenahay cajsigu marar badan buu noqdaa jahliga marar badan buu sababta cajsiga keenta ay tahay aqoon darrada waayo subxaana allahi haddaanad ajarkeeda garanaynin waa aqoon darra ku haysataa aqoon darradu waxay keentaa qofku inuu waxba qaban waayo hadaad aragto qof aydhal ah jahlnima haysata walow uu xoog badan yahay walow uu dakaagiisu intelligencekiisu uu sarreeyo walow uu caqli badan yahay mar haddaanad muntij ahayna wax soo saaraynin waxay yidhaahdaan nolosha waxaa qiimaha ku sameeya ma aha inaad caqli badantay ee waxa weeyaan bay yidhaahdaan inaad hardware kar tahay nolosha taasaa raad ku leh qof xoog wax u qabta inaad tahay garadka badane hadduu hurdo dhalo waxba tari maayo si kastoo aad daki u tahay haddaad qof laysiyatay qof aan firfircoonayn haddaad tahay garaad bandidna waxba kuu kordhin mayso si awgeed buu nebigu wuxuu tilmaamayaa amaba se aan aayadda qur-aana tilmaamo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu qur-aan ku tilmaamay qof dhan oo bini aadam ah oo intuu dembiilo noqday arday u noqday tuke qiyaas inaad tuke arday u noqotid tamardarradu halkay gaadhay saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyahy fabacatha allahu ghuraaban yabxathu fi lardi liyuriyahu kayfa yuwaari saw'ata akhiih qaala yaa waylataa acajaztu an akuna mithla hada alguraab fawaariya saw'ata akhii faasbaxa min annaadimiin in aadamkii walaalkii dilay markuu dembiga geystay walow uu xoog weynaayo xooggaa walaalkii ku dilay uu qabay kadib aqoon darrada haysatee waxay noqotay si uu u galo meydkii walaalkii buu garan waayey ilaahay baa wuxuu u soo diray tuka markaa aqoonta ah in wax la xabaalo baray tuka kaloo dhintay god u qoday oo aasay wuxuu baray markaa in wax la xabaalo wuu halaanhalay ama wuu calaacalayo wuxuu leeyahy yaa waylataa acjaztu an akuuna mithla hada alguraab halaagaygiiyow kaalaye ma waxaan ka liitaa ma waxaan ka waxtar xumaaday inaan tukahaasoo kala noqdo idan jahligu tukuu macallinkaaga dhigi dad badanoo maanta soomaaliyeedoo iska fadhfadhiya waxay la fadhiyaan waxay qabtaanba way garan waayeen jahligaa fadhiisiiyey beer si loo qoto ma garanayo wax kale si loo sameeyo ma garanayo aqoon si loo barto ma garanayo jahli baa fadhiisiiyey jahligu markaa dadka wuu dulleeyaa idan aqoontu iyo cilmigu waa min alquwa almu'min alqawiy khayru axabu ila allahi min almu'min daciif wa fi kullin khayr quwada la sheegaya aqoontaa ka mid ah si awgeed ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam inagala dardaarmayaa istacin billaahi walaa tacjiz ilaahay kaalmayso oo isticaanadaada ilaahay kaalmayso hana caajisin qur-aankana ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa in badan baa ilahay wuxuu qur-aanka kaga warramaya reer banu israa'iil oo la leeyahay khuduu maa aataynaakum biquwa war waxaan diinkaanu idiin soo dejinnay war si ijtihaad iyo firfircooni iyo xoog uu ku jiro khuduu maa aataynaakum biquwa baa ilaahay leeyahy نبي موسى محا إلهي لي وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذ بأحسنها إلهي نبي موسى كلي فخذها بقوة سددال يتمر كتشر تقاضى خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا مركي إلهي النبي يحيى لها اللي وحلالي يا يحيى خذ الكتاب بقوة والنبي يحيو كتابك سي حوغان وقادة بالليل سي جدية سي اجتهاد كتشرو سي الددال يفر فرعوني كتشرتو إلهي كتابك سو قادة بالليل وحا قرآنك إلهي وكسي فينيا
dadka wahsiga iyo cajsigu haya inay sifada munaafiqiinta tahay wahsigu ilahi wuxuu leeyahay ina almunaafiqiina yukhaadicuuna allaha wahuwa khaadicuhum waida qaamuu ila asalaati qaamuu kusaala munaafiqiinta ilahay wuxuu ku tilmaamay salaada hadday u kacaan waa kuwa kaca iyagoo kusaala ah iyagoo wahsi iyo caajis u hayo walaa yaatuuna asalaata ilaa wahum kusaala salaada lama yimaadaan baa ilaahay yidhi iyagoo xaaladda ku sugan mooyaane ayuha alaxiba markaad wahsato acmaashu way isfuulfuushaa wixii maanta kugu habboonaa inaad qabato markaad qaban weydo wayse sii kortaa sidaa awgeed baa ilaahay wuxuu ku tilmaamaya yaa ayuha aladiina aamanuu maa lakum idaa qiila lakum infiruu fii sabiili illahi athaqaltum ila alard war dadka mu'miniinta ahu maxaa idinku dhacay oo haddii la idin idhahda ilaahay tiisa usoo baxay jihaadka usoo kaca athaqaltum ila alardi baa la yidhi maxaa dhulka idinku cusleeyey ayaa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala maxaad dhulka isugu nabaysaane u kici kari weydeen araditum bilxayaati addunya min alaakhira ma adduunka aakhira ka jeclaateen baa ilaahay leeyahy famaa mataacu alxayaati addunya fi alaakhirati ilaa qaliil ilaa tanfiruu يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا أيها الأحبة kuwa munaafiqiinta jihaadka ka wahsada ilaahay wuxuu ku tilmaamay inay sifaadka munaafiqiinta ka mid tahay taasi yaa ayuha aladiina aamanuu khuduu xidrakum fanfiruu hubaatin aw infiruu jamiica waina minkum laman layubati'anna waxaa idin ka mida baa ilaahay leeyahay mid dadkaba cagsi gelinaya o fadhiisinaya oo dib u reebaya waxay yidhahdeen daraasaadka cilmiga ee dambe xataa caafimaadka qoladan maanta ka shaqaysa waxay tilmaamayeen daraasay tilmaameen cilmiga Hong Kong ay ku sameeyeen oo dadka Hong Kong baadheen markaas waxay yidhahdeen laziness-ka iyo waxqabad la'aanta iyo sigaarka bulshada keebaa dadka leyntiisa ku badan bay dhahay sigaarka waxa la wada yaqaanaa inuu sun yahay oo boysiyo dadka laayo cagsiga iyo iska fadhiga ka batay iyagu daraasaday sameeyeen qolana 6,800 meelahaasay noqotay qolana 5,700 maanta waa kuwan yidhaahdaa xanuunada ugu tirada badan lee bini aadamka ku dhaca waxa keena bay yidhahdaan maxay exercise la'aan exercise-ka la sheegay inaad boodboodo quran ma waa inaad wax qabato uun laakiin haddaad iska yuururto una fadhidid qof fadhiya habeen iyo maalinba caafimaadkiisaba khatar ku jira ka kaalay nolosha inaad waxtar ku yeelato iyo wax soo saar inaad yeelato ee waxa khatarta gelaya waxa weeyaan maxay adiga caafimaadkaagii baa khatar gelaya walidaalika bay atabada maanta waxay tilmaamayaan qofku inuu nashaad iskeliyo ma macaan baad qabtaa ma sokor baad qabtaa ma kan baad qabtaa maalintii intaa soco intaa qabo inta yani waa wax qabo fadhigu markaa caqligana uma fiicna iska fadhigaan waxba lagu qabanaynin jirkana uma fiicna aakhirana uma fiicna adduunna uma fiicna laziness-ku markaa nolosha meel laba wax kagama leh ee waxa meesha taalla qofka mu'minkii inuu muntij noqdo qof wax soo saar leh inuu noqdo weligaa ha moodina waqtigu ku dhaafay dadka barbaa isle faataka alqataarkay sheegi jireen yani waqtigiiba tegay intaan meesha fadhiyay inta kuu hadhay cimrigabaa wax soo saar yeelan karta laga yaabaa dadka badhaysa oo maanta konton jirbaad ee waxbaad baran karaysaa dad baa konton jirraynta ku bilaabeen culimmadii ugu waaweynay dunida noqday ma garanaysid cimrigaagu intuu ku gabagaboobi doono ma garanaysid inta ilaahay adiga jaanisku siiyey adigoo waxa ku xilka ku saaran wuxuu yahay inaad rumaysato cimrigu weli mutasac baa jira nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo taa inagu dhiirinaya wuxuu tilmaamayaa in qaamat isaaca وفي يد أحدكم فصيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها نبي قول له هدو قيامه حقا كصوب لا بصاقعه وأدقعنت كوهيسه فصيلة ده وحلا إذا جت مريت كير الله أبغى ليه جت مريت إذا أدقعنت كوهيسه هذا تكجر سينكرتين هذا أبغى شبه نبي قول له أبغال بير هذا تكجر سينكرتا بير وإننا يدان قيامة بيننا نركين بين فردنا ونلين وان قبوبي
soomaalidu dee 40 jirkay ku gabowdaa soo maaha qofka soomaaligii markuu bini aadamkuba u xoog badnaa markuu gaadho ayuu yidhaahdaa waan gaboobo wax waliba way iga dhammaadeen bini aadamku caqliguu ka gaboobaa haddaad maanka ka gabowdo ayuumaad gabowde inta kale waxbaad qaban kartaa inta kale waxbaad qaban kartaa sawgeed buu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamayaa qabla almowt in furas jiro inta geerida ka horreysa inaad fursad haysato fursad wax lagu qabto inaad haysato waxaad yaraysanaysaa wax weyn noqda waxaad yaraysanaysaa maxaan uga jeedaa sadar quraana inaad qaybtaa waa wax kula yar soo maaha waxaad isleedahay oo haddaan maalin kasta sadar qaybo goormaan qur-aanka dhammayn haddaan sadar qaybo goormaan qur-aanka dhammayn waxay dhahaan 12 sannadood waad ku dhammaynaysaa haddaad maalin kasta sadar qaybto hadda waa sadar hal sadar waxay dhahdaan waxqabadku taraakumka beeritaanku qiimaha ku sameeya markanaad qabanayso waxa yaraantiisa ayay kuu muuqanin haddaad maalintii hal safxa qorto hal page haddaad maalintii qorto sanadkii imisaad soo saaraysaa ugu yaraan 2 buug baad qori kartaa sanad kasta waayo sanadku waa 365 maalmood haddaad maalin kasta page qorto macnaheedu waxa weeyaan ugu yaraan buug 300 page ka badan ayaad qori kartaa laakiin haddaad tiraahdo ma xaashi aan qoray baa buug noqon doontaa maxaan xaashi ka qori doona aqoontu iyo waxqabadku iyo waxtarku taraakumka inay biirtaabay wax ku noqotaa wax kasta oo biira aakhirka wuxuu tagaa maxay wax qiimo leh buu noqdaa taasa waxay keensanaysaa inaad waqtiga waxba yaraysanin in wadaada wuxuu ii tilmaamayay jaamacad buu master degree ku qaatay isagoo shaqo kale markaa wada inta uu gaariga soo socday uu gurigiisa ku sii socda buu dhageysan jiray una cajiladii jaamacadda warkeeda inta loo duubo ayuu wuxuu dhageystaa inta maxay uu gaariga sii wado hadda intaad gaariga gurigaaga jaamacadda inta tagtay gurigaaga ku sii socota inta aad dhageysato ayaad ku qalin jabin kartaa laakiin waa hadday taraakumto de waa haddaad maalin walba sida tan u dhageysanayso marka waxaan uga dan leenahay camalku iyo waxqabadku iyo waxbarashadu iyo wardigu iyo wax waliba in la biiriyaabay wax ku noqdaan in la joogteeyaabay wax ku noqdaan camalka inaad joogtayso ayuu wax ku noqonaya ilaahina wuxuu ina leeyahay walaa tahinu walaa taxzanuu waantum laclawna in kuntum mu'miniin war dadka mu'miniinta wahniyu idinku dhicin haniyad jabina hana murugoonina idinkaa koreeyaba ilaahay tilmaamaya haddaa kuwa mu'miniina tihiin haddaad dariiqa iimaanka raacdaan waa koraynaysaan xataa markan awooddaadu intaad qaban kartaa ha yaraata laakiin intaa qabo sawgeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu leeyahay waka'ayin min nabiyin qaatala macahu ribbiyuuna kathiir فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين بدنا أنت النبي قاتل معه الربيون معي سايلا دقال قالين كوا ربي لو نسبي داد إلهي سليبي ومي ضعيف وحيد بسو قاري مي إسديب مي إسدول دقين waxay noqdeen dad walow markaa ha lagaba xoog batee wada camalkii ilaahay intay natiijada ka gaadhayaan ayuha alaxiba marka xadiiska kan wuxuu nabigu ku gabagabaynayaa calayhi salaatu wasalaam weer tilmaamaysa ereyga low ah wixii kaa tegey tiiraanyadooda inaanad isku mashquulin oo wuxuu nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam ha odhanin bal ma haddaan sidaa iyo sidaa yeeli lahaa waxaasaa soo bixi lahaa saasaa noqon lahay fa ina low taftaxu waxay furtaa low waa camal shaydaan albaabka shaydaankay furtaa oo maxaa jira alqadaa walqadar mar hadduu ku dhaafo lama calaacalo qaar baa waxay yidhaahdeen low kaanuu cindanaa maa maatuu wamaa qutiluu haddayna la joogi lahayn waa kuwo
munaafiqiina waxay leeyihiin muslimiinta soo dhimanaysa hadday iska joogi lahaayeen nala fadhiyi lahaayeen ma maatuu wamaa qutiluu manay dhinteen labana dileen ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamayaa qul low kuntum fii buyuutikum labaraza aladiina kutiba calayhim alqatlu ilaa madaajicihim waar xataa guryihiina haddaa ku jirtaan intii wakhtigu ka dhammaatay geeridu way u iman lahayd baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala saa awgeed low waxay culamada qaar yidhaahdaan mawducu tacliimkuunbay ku fiicantahy ayaa la isticmaali karaa oo maalan jaamacad baad ka soo qalijabisay wixii aad barataa marketka aan shaqo ku lahayn qof yar baa ku yidhi ila tale markaasaa waxaad ku tidhi maanta haddaan jaaniskaa haysan lahaa low kaan haddaan jaaniskaa haysan lahaa kan maan galayna kaasaan geli lahaa waa litacliim qofkan baad rabtaa inaad tidhahda war natiijada anaa waddadan soo marayo ma fiicne waxaad isku daydaa maxay kan kale inaad saas daraaddeed buu nebigu lahaa low istaqbaltu min amri ma stadbartu markii ay uu tilmaamayey dadkii soo xidhay cimrada ama xajka soo xidhay ee xalaaloobi kari waay ee hadyiga waday haddaad hadyidu waddo ma xalaaloobaysid haddaan arrinkayga hadda wixii soo dhaafay hadduu hadda ii bilaabmi lahaa buu nebigu leeyahy hadyigana maan soo kaxeeyeen dadkana waan la xalaaloobi lahaa buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam culammada waxay yidhahdaan markaa min baabi tacliim iyo meelaha hadday tahay waa bannaan tahay laakiin baabu calaacalka hadday tahay bay leeyihin ma bannaana oo waa maxay qul maa shaaa allahu kaan waa inaad rumaysataa wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaaa allah ina allaha kaana caliiman xakiima wixii tegey waxba kama bedeli kartid maadaama aanad waxba ka bedeli karaynin ilaahay wuxuu tilmaamayaa wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaaa allah ilaahay wuxuu doono mooyaane wax kaloo idinku dooni kartaan ma jirto ina allaha kaana caliiman xakiima bale waxaad ka calaacalaysa waxaaba laga yaaba in khayrku saa ku jiray wacasaa an takrahuu shay-an wa huwa khayrun lakum waxaan kusoo koobaya markaa xadiidka dhammaantiiba nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay mu'minka waxtarka ah ee nafciga leh ee xooggiisa iyo caqligiisa iyo wixiisu qabanayo nashiidka ee ku firfircoon qawiga ah ayaa ka khayr badan mu'minka daciifka ah mu'minnimaduna dhammaanteed waa khayr marka horeba dardaarankaana weyna siiyey wixii ina anfacayana inaynu samayno ilaahayna inaynu gargaarsanno cajsiga iyo kasliga iyo waxaana inaynu iska dayno wain asaabaka shay-un falaa taqul haddii wax sidii aad rabtay natiija u dhici weydana ha odhanin buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaan sidaa iyo sidaa yeeli lahaa laakiin waxaad tidhaahdaa qul qadara allahu wamaa shaaa facal faina low taftaxu camala ashaytaan sala allahuma calaa muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin